السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر وضع مقالك العصب مدحوينها ودنك الروشكا فلاديمير بوتين أي سفر نادر شلay ku tagay dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya. Mowduucyada la filayo in laga wada hadlo ayaa waxaa ka mid ah dagaalka Gaza iyo Ukraine iyo sidoo kale soo saarista saliidda oo uu kala hadlay madaxweynaha Imaaraadka Carabta. Imaaraadku wuxuu hadda martigelinayaa shirka cimilada ee COP28 ee qaramada midoobay. Mr. Putin oo marar dhif ah galay safar uu kaga baxaya Ruushka tan iyo bishii Maarso markii maxkamadda caalamiga ee dambiyada ICC ay soo saartay amar lagu soo xirayo ayaa sidoo kale Khamiista waxa uu hogaamiyaha Iiraan kula kulmi doonaa magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Maxkamadda ICC ayaa ku eedeysay inuu si sharci darro ah u tarxiilay carruur u dhalatay dalka Ukraine oo uu u dhoofiyey dalka Ruushka taasoo ah dembi dagaal balse Imaaraadka iyo Sacuudiya midna ma aqoonsana maxkamadda ICC. Hogaamiyaha Ruushka ayaanan ka qayb gelin shirar caalami ah oo ay ku jiraan shirkii Paris ee Koonfur Afrika bishii Agoosto dhacday iyo shirkii G20 ee Sebtembar uu ka dhacay dalka Hindiya. Safaradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Ruushka uu aad u danaynayo inuu saameyn ku yeesho oo uu wiiqo isku dayga reer galbeedka ay ku doonayaan inay ku go'doomiyaan. Mr. Putin ayaa waxaa Imaaraadka ku soo dhaweeyey ciidamo fardo iyo mootooyin wataan halka kooxda hawada sare ay ku sawirtay calanka Ruushka. Hogaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan xiriirkaygu wuxuu gaaray heer aan horey loo arag. Ganacsiga iyo saliidda ayaa noqon doona ajandaha Imaaraadka kaas oo bayaan ka soo baxay Kremlin lagu sheegay inuu yahay saaxiibka ugu weyn ee dhanka dhaqaalaha Ruushka iyo dunida Carabta. Madaxweynaha Ruushka ayaa markii dambe u safray Sacuudi Carabiya si uu ula kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Amiir Mohammed bin Salmaan. Intii lagu guda jiray kulanka kooban ee telefishinka laga sii daayay ayuu Mr. Putin waxa uu amiirka dhaxal sugaha ku casuumay inuu booqdo Moscow. Ma jiran wax hor istaagi kara horumarinta xiriirka saaxiibtinimo, isagoo raaciyay inay muhiim tahay in la isweydaarsado macluumaad iyo qiimeynta dhacdooyinka gobolka ee hadda jira. Dhaxal sugaha ayaa sheegay in iskaashiga labada geesood uu gacan ka geystay in meesha laga saaro xiisado badan oo ka taagnaa Bariga Dhexe. Hogaamiyaha muranka badan dhaliyay ee Jamhuuriyadda Chechnya ee Ruushka Ramzan Kadyrov ayaa sidoo kale lagu warkay isagoo ka qayb galaya kulanka Mr. Putin iyo hogaamiyaha dhabta ah ee dowladda Khaliijka. Ka hor kulanka Kremlin ayaa la sheegay in labada hogaamiye ay tixgelin doonaan siyaabaha lagu yareyn karo xiisadaha colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas iyo in colaadaha Suuriya, Yemen iyo Suudaan looga wada hadli doono Imaaraadka iyo Sacuudiya. Wakaaladda wararka ee Ruushka taas ayaa sidoo kale sheegtay in afhayeenka xukuumadda Ruushka Dmitry Peskov uu xaqiijiyay in Mr. Putin iyo amiirka dhaxal sugaha ay ka wada hadleen iskaashiga OPEC+. Saraakiisha Kremlinka ayaa ku dhawaaqay in Mr. Putin uu la kulmi doono madaxweynaha Iiraan ee Ibrahim Ra'iisi Khamiista si ugala hadlo dagaalka Gaza. Mr. Putin ayaa tan iyo markii uu Ruushka soo galay Ukraine bishii February ee sanadkii 2022 waxa uu booqday oo keliya gobollada u dhaxaysa Ruushka ee Ukraine. aad iyo maashinta daawadayaal.